mudaharaadkan ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa ee sanadkan la sameeyo oo lagaga soo horjeedo in dadka laga tarxiilo dalkani Jarmalka loona celiyo dalalka kale ee markii hore ay ka soo galeen qaaradan Yurub waxaana kulankan soo abaabulay mudaharaadkan ururada u dooda dadka qaxoontiga ee lagu magacaabo welcome to Europe waxaana mudaharaadkaas sidoo kale uu ka socday magaalada Hamburg waxaana halkaas ku sugan Marili oo Honkebel uga warbixinaysa German airports to all European countries. Here are many people protesting against the deportation, especially also against the airline Air Berlin, who is flying very many people, deporting them back to other countries or to their own countries. And the passengers are getting this stuff to mudaharaadkan lagu qabtay magaalada Frankfurt ee dalkani Jarmalka ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa ee lagu qabto magaaladani ee laga hortagayo dib u celinta lagu samaynayo qaxootiga soo gala dalkani Jarmalka waxaana mudaharaadka mid la mid ka socday magaalooyinka Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Bayern Munich iyo waliba Hamburg. Abschiebung ist Folter, Abschiebung ist Mord. waxaan wali si cad loo ogeyn go'aanka ay dawladda Bundis federaalka ee dalka Jarmalku ay ka qaadan doonto mudaharaadada laga soo horjeedo in dadka laga tarxiilo dalkani Jarmalka. Mustafa Xaaji Aadan Haarun, telefishinka caalamiga Honkebel TV, Jarmalka.